بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وحنا وناكسن دمان أصحابتا قيمها يقايها له إلا صعدا شبكة solarportal.com solarportal فيسبوك لايف أما هدو دين دافو solarportal يوتيوب وكوسمين كرتان سبسكرايب سي وحالا وحيدين دافا أدو قد داوتان برنامج آد وحيسا بدن ومقع عيسى أنو ويرني Puntland iyo Universal TV ayaan idin hayaa caawa waxaan si sharaf iyo qiimo leh idinkaga codsanayaa in aad sii qaybisaan si asxaabta kale ee iminka ku jirta Facebooka ay warkaan isla markaana la socdaan si aad la socotaan 24 saac ee ugu dambeysay waxa la hadalhayay barnaamij ka baxay xalay TV-ga caalamiga ah ee Universal TV xaruntiisa ku taala caasimadda waddanka Ingiriiska magaalada London runtii aqoonteeda Universal waa mid aad u dheer waxaan ahaa shakhsiga ugu horeeyay oo Soomaali ah oo TV-gaas waa TV-ga ugu horeeyay Soomaali ka soo baxa habeenkii ugu horeeyay xilliga la aasaasay xilli iminka laga joogo 12 sano waxaana soo shaqeynay waqti badan dad aad u fara badan wariyaal rugcada ah kuwa dhintay kuwa nool dad aad u qiimo badan uu ka mid yahay rugcadaaga weyn ee Cagmadhige oo la dhihi karo 40 sano ugu dambeeyay wuxuu ku jiray warbaahinta Soomaaliya waana qof yaqaana qaabkii warbaahinta u shaqeyso laakiin anigu waxaan idhaahdaa Cagmadhige waa fariin gudbiye sidoo Ingiriiska u yiraahdo a messenger don't shoot the messenger ama fariin gudbiyaha toogan oo kale marka Cagmadhige markuu meesha soo fadhiisanayo qaabku barnaamijku u shaqeeyo iyo wuxuu yahay aan ka sheekeynaa laakiin horudhac waxaan doonayaa in mar walba focus aanu saarin shakhsi oo ah Cagmadhige Maxamed Xaaji aanan focus aan saarin oo yahay kaliya fariin gudbiye laakiin maamulka iyo go'aanka Universal TV qaabku u shaqeeyo maahan qaab ah inuu wariyo iska soo fadhiisto uu go'aan ku gaaro inuu barnaamij u sameeyo waa hierarchy ama kala sareynayay leedahay dusha ay ka timaadaa ilaa marka ugu dambayso go'aan lagu gaaro barnaamijna tabcan la iskama sameeyo waxaan ka sheego oo qalad ah ama been aan bajirin dad aan la soo shaqeeyay wanaag aan isku joognay wanaag aan kala tagnay sida awgeed barnaamijkan saaka ayaan si fiican u dhageystay ee la yiraahdo xaaladda Puntland la yiraahdo marka runtii waa soo jiitay inta badan ma daawado cid daawata mid TV-da inta badan hadda waa social media wax walba xaaladda Puntland waayo waxaan ogaa barnaamijka inuu noqon doono barnaamij aad u xiiso badan barnaamijka markii la furay waxyaabaha ugu horeeya ee wariyaha Cagmadhige uu ka hadlay waxay ahayd isagoo xataa aan meel ka aqrin Cagmadhige wuxuu ku caan baxay wariyaasha kale kaga duwan yahay waraaq xataa wax kama aqrisan wax u aqrinoo kale toos ayuu u abaaray sheekada wuxuu ku bilaabay oo focuska uu saaray daqiiqadihii ugu horeeyay barnaamijka hadii aad dawataan General Asset oo ah shakhsigii kaalinta labaad soo galay doorashooyinkii bisha January ee sanadkan ka dhacay Puntland oo ku guuleystay madaxweyne Deni wuxuu ka hadlay madaxdii hore ee wadanka oo yiri Puntland dhaliil ma lahayn laakiin waxa loo soo socday oo loo soo biyo shubtay waxay ahayd 8 bilood ee Deni inay dhaliilo fara badan ay yimaadeen taas tabcan waan ka hadli doonaa laakiin waxaan doonaynaa si daacad ah oo dhexdhexaad ah barnaamijka objectivekiisa ama wixii loogu talagalay inaan isla wada eegno waxaa la isticmaalay oo la soo saaray barnaamijka clipyo ama videos aad hore u aragteen oo warar laga soo sameeyay meelo kala duwan oo Puntland ka mid ah tusaale ahaan waxaan aragnay Bari Boosaaso in dhowr jeer lagu soo celiyay wuxuuna ku bilaabay kulan ka dhacay Boosaaso iyo odayaal hadlay oo mar walba objectiveka barnaamijka wuxuu ahaa waxaanu arkaynay kaliya inta ka soo horjeeda ee systemka hadda ka jira Puntland ee madaxweyne Deni uu madaxweynaha yahay ee loo doortay sanadkan waxa ku xigay Sanaag clip ayaa la soo galiyay idana Sanaag ay ka hadlayaan isla markaana ay eedeynayaan dawladdan hadda jirta iyo systemka siduu yahay iyo inay waxyaabo badan ay jiraan oo dhibaato waxa la soo galiyay clipkii dad aad u fara badan oo aniga kamid ah xataa aan ku dhaleecay dawladda Deni parliamentariankii ama xildhibaankii ku jiray baarlamaanka Puntland ee hadlay ee su'aasha weydiiyay madaxweynaha ka dhaqaajiyay marka caawa haddaad u malaysaan in loo durbaantumayo ama la difaacayo Deni sheekadu sida way ka duwan tahay laakiin waxaanu eegaynaa barnaamijkan qaabku u dhacay sidoo ahaa waayo xilligii cawil su'aasha weydiiyay anagoo dhan waan ka soo horjeesanay waxaan idhi maalintii dimuqraadiga wadanka Puntland uu dhintay maanta hadiiba ay noqoto in xasanada laga qaado
marka waxaad ogaanaysaa annaga ma nihin dadka ma aragtay u heesa ama u buraanbura mar walba waxaanu ka eegaynaa objectiveka wariyaha uu leeyahay barnaamijka. wariyaasha Soomaaliya jooga kuwa dibadda jooga waxay u kala baxeen qaar aan objective aan lahayn, qaar tolkooda la safta, qaar lacag la siiyo, qaar waxay ahaadaan. marka objectiveka waa wax aad u muhiimsan qofka meesha ku socdo. okay, Puntland sideedaba ma lagu tilmaami karaa inay tahay meesha ugu nabadda fiican dhulka Soomaaliya hadda ugu horumarsan? ma lagu tilmaami karaa? dabcan waa lagu tilmaami karaa. qof ka soo horjeeda laakiin lagama dhaadhicin karo. hadduu wato dan kale isaga markaa uu wato lama dhihi karo way fiican tahay. wuxuu ku dhihi karaa waa meesha ugu xun Soomaaliya ku dhihi karaa Puntland, waayo objectivekiisa ama wax uu doonayo ayuu doonay inuu ka dhaadhicin. marka barnaamijka wuxuu u socday in la yiraahdo qofkii aan aqoon Puntland, qofkii aan ka warqabin siyaasadeeda, siday u shaqayso, horumarkeeda, dhaqaalaheeda, wuxuu oranayaa allay lehe oo aan weli aan tegin, wuxuu oranayaa Puntland waa meel lagu kala tagay barnaamijka markuu daawado. ka ayayna ahayd objectiveka ugu weyn barnaamijka. sababtoo ah wariyaha marka isagoo nin rugcadaa yaqaan waxaa loo baahan yahay in marka dadka soo wacaya waxay doonaan ay ka sheegaan. dad baa soo wacay programka formatkiisa. dadka markay soo wacaan isaga ayaa la doonaya marka as a journalist marka inuu difaaco. ma shaqadiisu gabay? maya. cagmadhiga shaqadiis ma gabin. shaqadiis aad ayuu yaqaan, waa nin diyaarsan. laakiin cagmadhige waa fariin gudbiye. cagmadhiga go-aanka male uu kaga hadli karo uu samayn karo. cagmadhiga waa loo soo sheegay, waxyaabo kale ayaa jira idin sheegi doona, aad la yaabi doontaan. waxaa la yidhi barnaamijkan ayaa la doonaya cagmadhige adigu ka hadal. cagmadhiga waa la amray sida wariyaasha loo amro markay shaqeeyaan. wariyaasha hadda Facebook iyo meelo kale lama amro, laakiin marka aad fadhisid University TV oo kale iyo TV-yada kale, waagi bilowgu aan ka shaqeyn jiray aan la bilaabanay xataa barnaamij cayaaro kale aan samayn jirnay ama faaqidaada adduunka oo samayn jirnay, ilamaana looga sheego waxaan sameynna ma samayn karin. haddii kale waxay noqonaysaa qofku waa lagaa joojinaya barnaamijka. marka qaabkaas u shaqeeya. marka tan siyaasadana waa la ogyahay marar badan qaladad badan ayaa la sameeyey. marka ka gudub dhaliisha. ugu horeyn Deni boqor ma ahan, Puntland boqortooye ma ahan. waa la dhaliili karaa, waa xaq. warbaahinta waa inay fasaxaan, waa xaq. waa in baarlamaanka uu xor ka ahaada, waa xaq. waa in su-aal noocii la doona la weydiiyaa. laakiin barnaamijku sidaa ma ahayn. barnaamijku ka duwanaa. barnaamijka objectivekiisa ama meeshuu u socday wuxuu ahaa sida University TV aan ku naqaan oo la yaqaano, haddayna maqli waayaan aan ismaqashiino ayaa la yidhaahdaa. waa halhays University laga yaqaano. haddaysan maqli waayaan aan ismaqashiino. taas waan ka hadli doonaa. marka barnaamijka wuxuu ahaa mid si toosa u abaaraya Deni, isla markaana ku xijinaya Puntland. sababtoo ah hadda Deni isaga ayaa ka mas-uula. marka Puntland ma lagu kala guuray, ma lagu kala tegay? maya. ma dhibaataa ka jirta, ma dagaala ka jira? maya. horumar baa ka jira? waa ka jiraan. laakiin hadda waxaa la sameeyey dad ayaan u cuntamin oo ku nool dalka iyo dibadda. qaarkood jooga Muqdisho, qaarkood jooga London, kuwo kaloo Minnesota joogaan ka hadli doono, ayaan u cuntamin. hadday ahaan lahayd reer ahaan, hadday ahaan lahayd waagii gaas oo kale siday wax u heli jireen oo kale ay u heli kari waayaan, ama siday wax u doonayaan ay u heli kari waayaan, in ay tashwiish ay furaan, isla markaana warbaahinta la isticmaalo. u fiirsatan warbaahinta xorta ah markay barnaamij samaynayso, BBC ayaa ugu weyn, Voice of America Soomaali, laga yeeli maayo in qof inuu soo fadhiisto meesha uu meel abaaro iyadoo challenge aanu jirin. qaabkaas ay u shaqeysa warbaahinta. waxaa la leeyahay qof ama xildhibaana ama qof ayaa la siinaya. marka qof ayaa hadlaya, qof ayaa oranaya Puntland waa meel aad u xun, qof kalena wuxuu leeyahay Puntland aad ay u fiican tahay. marka balance ayaa la sameynaya. laakiin barnaamijka haddii wariyihii uu ma aragtay mar walba uu ku soo celceliyo video la diyaariyey, waxaa meesha ku jirta xataa qofka aqligiisa aanu saalimin wuxuu oranayaa alla ilaahay caaw waxaa la soo weeraray Puntland. Puntland waa la soo weeraray. weerarkana kama soo bilaabanin University TV. waxay ka soo bilaabatay lacag. waxay ka soo bilaabatay Muqdisho, London iyo Minnesota oo mar dhow idin sheegi doono. marka isagoo hal dhinac ahaa, weli maan arkin clip kale oo laga soo daayay. ileen waan idin sheegi doonaa mar dhow, waan ku soo celin doonaa. clipyo aad u fara badan ayaa jira oo dad badan oo aad u taageersan madaxweynaha hadda, ileen isagaaba la doortay. meelo badan ayuu tegey, kamid ah degmooyinka iyo tuulooyinka ayuu tegey. dad badan ayaa taageersan. marka weli ma ku aragteen barnaamijkii xalay dad oranaya wadanka dhib ayuu isaga jira, waa iska Soomaali, inkastoo hore aan u socono dawladdu aysan fiicneen, laakiin dawladdeena waan jecelnahay, madaxweynaha waan jecelnahay, lama soo daynin. sababta wuxuu burburinayaa objectivekii barnaamijka loogu talagalay. haddii dadkii barnaamijkan qarash gareeyay arkaan dad amaanaya ama wanaaga uu Deni sameeyey,
deni waxa laga yaabaa wanaag inuu sameeyey deni waxa laga yaabaa inuu 50% wanaag uu sameeyey 50% si loogu talagalay uu sameeyay laakiin objective-ka barnaamijka ayaa meesha ka lumaya haddii la arko qof la oranaya alla ilaahay waan ku faraxsanay ileen airport garowe marar badan ayaa lagu soo dhaweeyey degmooyinkii uu tagay Sanaag meelo badan ayuu tagay Qardha ayuu tagay gobolada intooda badan uu tagay laakiin objective-ka ayaa meesha ka lumaya muxuu lumaya dadka barnaamijka soo abaabulay ama soo sameeyay oo la yiri ninkan hala joqojoqay isaga iyo dawladdiisa la yiri raxmarka ayaa yiraahdaa hala joqojoqeeyo ma doonayaan inay arkaan hal shakhsi oo deni amaanaya ama wax ka sheegaya haddii kale contractgii la galay meesha ayuu ku baxayaa cagmadhiga markaan sii eegay isagoo la soo diray oo la yiri barnaamijkan samee wuxuu isticmaalay tusaalooyin cajiib ah oo uu yiri waxaan maqalnaa warar sheegaya marka u fiirso tabloidska sida dadka Mareykanka joogo dhan Fox News iyo Daily Mail iyo wadanka Ingiriiska iyo waxa la soo sheegay warar sheegaya marka ma isticmaalay wariyaha si uu isaga ilaaliyo hadii la yiraahdo waxa noo soo sheegay ama Cabdinaasir ama Caasho aawiya yaa leeyahay wala soo qabanaya ma sheegayata waxa jira warar sheegaya wararkaas oo ah in madaxweyne Deni ku-xigeenkiisa Crash iyo gudoomiyaha baarlamaanka Dhoobe aanu isku fiicnayn marka waxa hawada la marinayaa war noocaas oo kala ah waxa la abuuraya marka tashwiish ayaa la abuuraya marka wariyaha marnaba dhihi maayo waxa ii soo sheegay TV Hebel ama waxa soo sheegay wariye Hebel oran maayo waayo hadii ay jirto marka waxaan arki lahayn clip yar oo Dhoobe Crash ama Deni iyagoo leh dawladda isla ma shaqeyso dhibaatana kala dhex taala ma jirin wuxuu isticmaalay erigan waxaan maqalnaa warar sheegay in Deni iyo Dhoobe iyo Crash aanu isku fiicnayn waxa kale oo la isticmaalay erey muhiim ah wariyaasha ay isticmaalaan dadka ka soo jeeda way dhaliili karaan Puntland buu yiri oo maxaa u diiday Puntland anigu Soomaali baan ka soo jeeda waxaan ogahay inaan Puntland wax ay galeen ayay 10aad ama 5aad waxay ahaataba Puntland qof kastoo Soomaali ah ayaa dhaliili kara qof kastoo Soomaali ah wax qabadkeedana isla markaana ku amaani kara marka kaliyamaan taas waxay furaysaa kaliya inuu wariyaha yiraahdo anagu waxaad kama sheegayn hadaan universal nahay waxa idin dhaliilaya qolada tihiin ama isku deegaan ah tihiin marka objective wuxuu doonayaa anagu warkaan soo gudbinaa marka ma aha shakadu ka duwanta waxa la doonayaa dadka in la indha sarcado la yiraahdo qof kasto uu waxa dhaliili kara dadka soo jeeda ayaa dhaliili kara طبعا laakiin sheeko walba laba dhinac bay leedahay dadka intooda badan waxay ahaayeen ay u badnaayeen kuwa marka loo arkay dadka la soo wacaya ama hal balamiyo ama ha ahaadaan laakiin hadii aad leedihiin caawa waxa la waayay qof mas'uul ah oo dawladda wasiir far badan ay leedahay ama baarlamaanka dadka dawladda taageera oo la yiri barnaamij ku saabsan Puntland ayaa la sameynaya waxaanu doonaynaa your side of the story ayaa luqadda Ingiriiska dhankiina sheekada inaan ka maqalno miyaa la waayay Puntland laga waayay ma laga ma weynin waayo la dooni maayo in qof reer Puntland oo dawladda oranaya wiilkii ugu horeeyay markaa soo wacay wuxuu ka soo wacay xaafadda Waaberi ee magaalada Muqdisho lahjadiisa ama actionkiisana ma ahayn nin ka soo jeeda Qardha ama meelaha kale ee Puntland sida Garowe ama Gaalkacyo meelaha ka soo jeeda ma ahayn laakiin hadalkiisa wariyaha uma uusan bogin sababtoo wuxuu filayay barnaamijka objectives wuxuu ah qof kastoo soo yeeray inuu yiraahdo wadankii Puntland waa lagu kala tagay Deni wuxuu noqday dictator Deni wuxuu noqday sidan ayaa la doonayay laakiin ninkan wuxuu yiri nin aad u degan dhalinyaro aqli badan u ah wuxuu yiri dadka kaliya maanta aan ku dayano waa Somaliland iyo Puntland meesha nabad ay ka jirto horumar ay ka jirto iyagoo Soomaali ku dhex yaala marka salaadiinta iyo ogaashiyada iyo qof walba dad kamid ah waa in madaxdu ay la hadlaan waan wax fiican nabad ayuu ku taliyay laakiin wariyaha uma uusan bogin oo ku soo gaabiyay sababtana waxay tahay wixii la doonayay ayaa meesha ka baxay waxa la doonayaa qof un ka soo hadla oo yiraahda meesha waxba ma yaalaan waa lagu kala tagay cagmadhiga wuxuu dhowr jeer ku soo celceliyay dad eegtaan haddii ay hadleen odayaashii Boosaaso Sanaag iyo Puntland yaa kala haray ayuu yiri marka anigu kulley Puntland waan tagay waana ka hadli doonaa waxaan ka tagay Garowe kaliya laakiin intaan qaraydada ka aqaano hadii Boosaaso Sanaag iyo Puntland kaliya ay ku kooban tahay waa mas'ala kale sababtoo ah way jireen dad badan oo kale oo hadlay way jireen oo kala duwan meel ay doonaan ka yimaadaan laakiin waxa la doonayay kaliya inta clipka laga hayo oo la diyaariyay oo pre-recorded oo la yiri intan laga hadlo clipkan ku soo dhawaada ayaa la yiri marnaba ma dhicin clip ka hadlaya Deni iyo lugeynaya
deni soo dhaweynaya madaxda qaranka loo caleema saarayo lagu soo dhaweynayo magaalooyin kala duwan ee Puntland lagu soo dhaweynayo deni lagu soo dhaweynayo hataa Kismaayo dheh in wanaagsan sababtoo ah waxa ka baxay inay la fahantaan objectivekan aan isticmaalayo wixii barnaamijka loogu talagalay oo ahaa in dowladda Puntland tashwiish iyo jahawareer lagu rido isla markaana loo isticmaalo madaxweynaha la yiraahdo madaxweynayaashii hore cid ka hadashay ma jirto isla markaana 8 bilood ayaa hadda u dhamaatay 9 bilood waxa badashay dhaliishiisa waxaanu doonaynaa marka dhaliisha in meesha la keeno waxa la soo galiyay dekad ayaa la soo galiyay dadka intooda badan waxaan fahmin marka waxa laga dhaadhiciyay oo ay wada aamineen dhamaantood mid muhiima taasoo ah in deni maalintuu yimid dekada Boosaaso isaga intuu iibsaday lacagtu jeeb kastay taas laga dhaadhiciyay ko airport sidoo kale oo Garowe iyo Boosaaso iyo meel walba airport laga dhiso wadada canshuurta laga qaado inuu isaga jeeb gashay sababtoo ah objective-ka sidaas ahaa waana loogu talagalay waxa la yiri dagaal dhanka warbaahinta lagu soo qaado markii ugu dambeysana ma ahan anigu ma waxaan u shaqeeyaa ama soo amray dawladda Puntland iyo deni maya ma soo amray qof soo amray mali waad aragteen aniga inta jeer Puntland iyo aan ka soo qoro iyo deni aan ka soo qoro waad aragteen oo mar walba la igu soo ataagarayo la yiraahdo nabadii nolol baa soo dirtay baa soo diray maya taa ma ahan markaad aragtid waxyaalaha qaarkood waxa dadku ay kugu xiiseeyaan ama ay ku dhageystaan waxay tahay in aad ka hadashid arintan waa muhiim in qof walba uu ka hadlaa marka odayaasha hadlay oo Puntland hadday ku eg yihiin Boosaaso Sanaag iyo Puntland waxaan filayaa marka deni xukunkiisa lagu qasaaray haddayba ka kooban tahay Boosaaso Sanaag iyo Puntland inta kale iska daa waa la iloobay magaalooyinka waaweyn Garowe waa la iloobay waxa la iloobay Gaalkacyo la iloobay Qardha la iloobay meel walba oo kamid ah dhulkan Soomaaliyeed ee muhiimka ayaa la iloobay marka odayaasha hadlay ee u hadlay ma magaalooyinka uu sheegay oo dhammaan ay mas'uul ka yihiin marka xitaa kuwa hadlay wax walba ay u hadli karaan waxa laga yaabaa waagi gaas waxyaabihii ay heli jireen Soomaalidu runta kama hadasho waagi gaas waxyaabihii ay heli jireen inay waayeen ayaa laga yaabaa oo ay u hadlayaan in pressure cadaadis la saaro ma dhici kartaa way dhici kartaa laakiin isla magaalada Boosaaso qof kastoo jooga ma aftiya laga soo qaado la yiri odayaashana ayaa in hadlaya ka waran odayaal kale hadii meel la fadhiiso la yiraahdo idinkana hadla ama tolahaan u hadla ama israhan u hadla ama waxaad u hadashaan odayaasha kale magacooda ku hadla la yiraahdaan dawladdan taageerna marka ma soo qaadan lahayn waxa meesha ka baxaya barnaamijka sidii loo doonayay meesha ka baxaya tan kale muhiima maxaa loo isticmaalin marka la aan ku soo laabto hal clip oo deni maxaa loo isticmaalin ilaa barnaamijku magaciisa waxa la soo qaaday oo aan eegay 73 jeer ayaan ka xisaabay in magaca deni la soo qaaday hal mar oo positive ah kuma jirin meesha deni wuxuu ahaa ninka wadanka burburiyay deni wuxuu ahaa ninka baarlamaanka qoorta qabtay wariyaashii xirxiray wax walba oo wadanka ka halaysan sameeyay taasna 100% universal qalad ay ku leedahay dawladda Puntland inay ka yeeshaan dawladda Puntland saan reedi kugu sheegay ma ahan boqortooyo madaxweynahana ma ahan boqor waa la dhaliili karaa habeenii maalin baa la dhaliilaya laakiin tan waxay ahayd gardarro aan geed loogu soo gaban oo qaawan oo lagu soo weeraray meesha kaliya ee Soomaaliya maanta waan ka hadlaynaa mar beledweyne iyo meesha kaliya ee Soomaaliya maanta dadka Soomaalidu ay eegaan nabaddu ay taalo wax walba ay yaalaan horumarku u yaalo Soomaalinimadan ay ku weynta marka taas dan ka sii gudbo degmooyinka uu tagay taageerayaashiisa sababta loo soo deyn way xataa hal clip muxuu ahaa bal noo sheega idinka intiina daawanaysa 1400 qof oo daawanaysa bal noo sheega sababta loo soo deyn barnaamijka haduu yahay dadka labay u kala baxeen qaarna gabi ahaan way ka soo horjeedaan qaarna gabi ahaan way taageersan yihiin kuwa taageersan waxba kama dhicin kartid iyagu waxooda waa black and white cadaan iyo madow deni ma doonayo kuwa kale taageersan waxay ku leeyihiin waa black and white deni ayaanu doonaynaa marka hadii saa loo kala baxa waxa la doonayaa man in the middle qof inuu dhaxda soo gal ayaa la doonayaa oo waxaan isdhaxyaac ah umada u sheego marka yaa ka dambeeyay maanta Facebook ayaan ku soo qoray saaka arintan aad ayaan u baaray contact aad u fiican ayaan ku leeyahay asxaab wanaagsan ayaan waxaan ku leeyahay Universal TV kuwada jooga Mareykanka kuwada jooga Soomaaliya iyo kuwada jooga magaalada London oo xarunta laga aas-aasay oo habeenkii ugu horeeyna meesha laga furay oo ahaa qofkii ugu horeeyay oo ka hadla aniga ahaa contact fiican aan ku leeyahay marka waxa la ii sheegay in barnaamijkan ra'yigiisa iyo qarashkiisa uu ka kala yimid magaalooyinka Muqdisho caasimadda wadanka Soomaaliya uu ka yimid magaalada London iyo qaar ka mid ah magaalada Minnesota ee wadanka Mareykanka runtii anigu waan garan kari waayay waan ogaa Muqdisho
dowladda Soomaaliya iyo Deni the best friend ma saaxiibada ugu wanaagsan ma aha laakiin Muqdisho uu ka yimid marka la dad badan ayaa shaki iyo tuhun ayaa galaya tabcan magac waan haya laakiin ma laga yaabaa inaan halkan soo fadhiiso magac hebel baa lacag soo diraan ilaahdo maya sababtoo ah qofkii ii sheegay aniga wuxuu amar igu siiyay inta inaan dhaafi karin ma sheegi kara magac haddaan sheego berri dambe ii sheegi maayo qof la aamini kara ma xitaa qaab kale igu soo sheego waad liyaabaysa haddaan idiin sheego qofkan iyo dadkan ka dambeeyana waa dad laga yaqaano wadanka gudihiisa iyo dibaddiisa barnaamijkana ahaan maayo barnaamijka ugu dambeeya caawa waxaan doonayaa meel inaad igu qortaan inta badan waqti kuma lumiyo meel ku soo qora barnaamijkan ahaan maayo oo la yaa bilowday meeshuu doona ka yimaado waa idin sheegay hadalku igu dheeraanin Muqdisho Minnesota iyo London ayaa laga soo abaabulay waxaa la doonayaa mar dhow inaad aragtaan dad badan oo social media-na soo gala in Deni laga dhigo waxay noqonaysaa sidii gobolku yiri ninkii u shaqeyn jiray Nazi-gii Jarmalku yiri beenta markaad badisaan run ayay isu bedelaysaa beenta dadka dib loo sheego marka haddii demonize laga dhigo madaxweynaha maaragtay Puntland laga dhigo wuu noqonayaa marka dadka in dheergaradka way fahmi karaan meesha sheekadu u socoto dadka wariyaasha dadka aqliga dadka wax bartay way fahmi karaan laakiin waxaan fahmi karin dadka doonaya objective-kooda inuu yahay inuu dhaca kuwa lacagta lagu siiyo ama kuwa doonaya in iyaga xilka markaa qabsadaan ama ay doonayaan in qof saaxiibkooda markaa xilka u qabto ama qaraabadooda teeda kale hadda cid doonaysa ma leh in qalalaaso xumo iyo waxay doontaa ahaato siyaasadda inay ka dhacdo lama doonayo Puntland waxaan loo doonayn waa la doortay ama idinku xumaado ama ha fiicnaado baarlamaan ayaa jira doorasho ayaa jirta si waqtiga qori caaradiis kuma uusan imaan waa sida kuwa maalin walba ku dooda oo federaalka oo jooga Muqdisho ku dooda oo yiraahda hebel waan ridayna ma ridaysid waqtigiisa la gaaro Deni waqtigiisa si baarlamaan hadii impeachment uu jiro sharci uu jabay ku qabo laakiin olole oo warbaahin iyo waxyaalo aan ficilin hadii la sameeyo dhibaatada soo gaaray basically kuwa jooga Puntland dhexdeeda Soomaaliya soo gaaraysa waadna ogtihiin dariska labada dhinacan Soomaaliya ayaa ka xigta xaalkooda dagaalkooda mar walba dhinacaan gaalkacay ilaa iyo galmudug oo xaalkeedan deganayn marka Soomaalidu waxa la doonaya qof walba inuu meel dheer wax ka eego qof hadda doonaya male in dhibaato ay ka dhacdo marka ninka ma la doortay waqtigiisa la sii siyaas lagu dhaafo haddii kale de qof kasto wuxuu oranayaa qofka yimaado isagana tashiisha lagu furo waan ka sii soconayaa marka arrintan waxa laga soo abaabulay Muqdisho dad la yaqaano London dad la yaqaan Minnesota dad la yaqaano Universal TV qaabkay u shaqeysa waxay tahay hadayna maqli waayaan waanu hadlaynaa Universal TV xalay iyo shalay inta isla fadhiisan editorialka maamulka ma oranin caawa barnaamij maxaan soo galnaa bal Puntland aan ka hadalno ma dhihin barnaamijkan dushu ka yimid sidii roobku u soo dhacay haddii barnaamij laga shaqeeyo ahaan lahaa ama studio qof hala keeno ama formatka ama nooca ka duwan markuu yahay la soo ag fadhiiso sidana waxa jiri lahayd in la waco weligeena ma aragtay barnaamij soconaya 29 ilaa 35 daqiiqo oo hal meel san loo abaaray xataa fursad aan la siinin waayo ani waxaan dhihi lahaa clipka soo la soo daay waxaan dhihi lahaa iminkana waxa qadka ku jira hebel oo ah afhayeenka hebel oo ah wasiir ama hebel oo ah Deni maxaad ku difaacaysaa wuxuu oran lahaa waxaad sheegtay oo dhan waxba kama jiraan wadanka waa degan yahay xogaa ismaandhaaf uu jira uu dhihi lahaa laakiin taa meesha waa laga saaray xitaa qof dawlad u hadladu soo geli lahaa qadka ayaa lagu jari lahaa sababta waxa la dhihi lahaa qadka ma shaqeyn la naga raali ahad ayaa la dhihi lahaa marka anagu waxaan 15 sano ku soo dhex jiray waan qana qaabkay u shaqeysa marka waxay noqonaysaa hadayna maqli waayaan waan hadlaynaa marar badan ayaa dhacday Sheekh Shariif ay ku dhacday waa la yaqaan ma doonayo dad colleague ah aan la soo shaqeeyay inaan caawa halkan ku xagxagto aan ilaahdo mar horan waan idin sheegay waan ka afeeftay cagma dhige waa fareen gudbiye cagma dhige waxaan ku eeday ma jirta bayraatay waa fareen gudbiye marka qofka messenger-ka xabad lagu ma dhufto don't shoot the messenger ayaa la yiraahdaa xabad lagu ma dhufto waxa la eegaa sheeko intay ka socotaa barnaamijka looma soo abaabulin barnaamijka waa qorshe socda kan uguma dambeeyo hadduu ahaan la social media hadduu ahaan lahaa meel walba waxaa la doonaya tashwiish iyo tafaraaruq iyo dhibaato in la soo kala dhexgeliyo reer Puntland xildhibaan cawil xasanada lagama qaadi karo sharciga haddii loo mar impeachment lagu sameeyo laga qaadi karaa dawladda marnaba lagu taageeri maayo inay caburiso warbaahinta ama ay xirto laakiin same time dawladda waa in la difaacaa dawladda Puntland iyo dadka reer Puntland waa in la difaacaa sababtoo ah nabadda aad haysataan haddii dad dibadda jooga iyo dad wadanka gudihiisa jooga oo aan arkarin ay idinka qasaan
waxaad eegaysaan koonfurta soomaaliya si ay tahay dhibka lagu jiro iyo rafaadka lagu jiro waana la dhamisay qof walbana waa ogyahay taa marka barnaamijkan ma ahayn objectivekii loogu talagalay ahaa barnaamij oo tayo leh oo la sameeyo ma ahayn ma doonayo inaan ku siraadhaco wuxuu ahaa mid si toos ah loogu abbaaray madaxweyne deni ayuu ahaa qof walba oo xataa dadka ka soo horjeeda reer puntland dadka soomaaliyeed ee aan ka soo jeedin puntland way fahansanaayeen barnaamijka markay eegeen qofka waxaa la soo geliyaa waxaa la yidhahdaa hebel hebel waa ficna laakiin hadday meesha soo gasho weriyaha uu isticmaalo jamaca noocaas oo kale ah waxaa la abbaarayaa qof ayaa loo socdaa waxaa la leeyahay wallaahi cabdinaasir nin adduunyada ka fiican ma jiro laakiin hadday soo raacdo waxbaa soo daba socda abril sanadkan 2019 ayaa markii ugu horreysay aan tagay magaalada garowe ee caasimadda runtii haddii laga sheekayn lahaa la dhihi lahaa waa garowe noocan oo kale ma aan rumaysan lahayn airport brand new cusub meel nabadi ay taalo nadaafadda waxaan ku eedeeyay xilligaas aan nidhi wax walba videos fara badan ayaan soo gelay wax walba waad ka shaqayseen laakiin dhir badan ha lagu abuuraan idhi magaalada wadooyinka iyo guryaha sida meeshana saxaray ku taalla sida loo dhisay waxay ahayd meel qof walba oo reer puntland kaliya qof walba oo soomaaliya uu ku faani karo oo proud uu ku dhihi karo inuu meesha dhulkaas ka soo jeedo ma aha dad ku dhashay ama ka soo jeeday ama reerkoodu degan yahay qof walba oo soomaaliya oran karo alla ilaahay magaalo soomaaliya nabado degano qurux badano dad nabad samaysay ay joogaan meesha ay taalla marka soomaalidu inta badan say doonaan isu ximiyaan ama lacag wax walba ma arki karaan meel stable ah degan wanaag uu ka socdo wax walba ay yaalaan ma arki karo marka xilligaas runtii aad baan ula dhacay xilliga doorashooyinka January ay dhaceen oo madaxda waddanka dhan ay tagtay ma jirin ciidamo uu dani watay oo geeska ka soo galay jabhadaha ayuu soo galay ma jirin meesha cod buu ku yimid meesha codka uu ku yimid ayaa lagu soo doortay uu ku joogaya haddii sharciga waddanka uu jabiyay marka isay kama weyna sharciga Puntland iyo dastuurka ay samaysay kama weyna su'aal ama hala weydiyo ama laga qaado waa laga qaadi karaa laakiin in kutrikuteen iyo TV in lacag la soo siiyo oo meelo kale laga soo waxeeyo la soo qaado anagu ma raba dooni mayno waan ka soo horjeednaa siyaasadaha xun marka qaarkood ay ka soo baxaan maxaa la yiraahdaa Puntland laakiin marnaba yeelmayna meel degan oo Soomaaliya ay ku dayanayso marka in la dhibaateeyo oo la xumeeyo marka waxaan ku laabanayaa aan eegayaa DDS iyo Universal oo qayb ka ah barnaamijkan Puntland waa dowlad deegaanka Soomaaliya Puntland waxaa lagu wadaa wadadaas oo kale Universal TV ay ka waday dadka ku nool Soomaali galbeed dadka ku nool way ka dheregsan yihiin waxa Universal TV ay ku samaysay waagii rejiimkii hore u joogay ninkii la oran jiray Cabdi Maxamed Cumar la oran jiray qof walba ka dheregsan yahay wuxuu kaga dheregsan yahay Universal TV inay ahayd chief enabler oo macnaheedu ay tahay dadka u ogolaaday oo human face siiyey dad badan ayaan ka hadlay weli kama hadlin aniga human face siiyey Cabdi Maxamed Cumar oo ka dhigay humanized طبعا waa human waa bani aadan laakiin humanized ayuu ka dhigay marka meesha Cabdi Maxamed Cumar uu humanized ka dhigay demonized ayuu ka dhigaya marka wuxuu ka dhigaya reer aakhiraad ama wax laga baqay ayuu ka dhigaya deni marka dadka waxaa la doonayaa in ay noqdaan in reer garad meel dheer wax ka eegaan marka sida loo tusay Cabdi oo beero falaya xoolo marka lisaya isagoo wadada socdo isagoo aabula leeyahay isagoo beero falaya isagoo diyaar raacay isagoo dhaantaynaya waa humanized waa bani aadan caadi ah ayaa laga dhigay marka hadda aad ayay u fududahay in deni laga dhigo marka in dehumanize laga dhigo oo wax aan bani aadan ahayn oo dictator ah dad ka laaya wixii dekadaha ka soo baxay jeebka shal laga dhigo easy u tahay sababtoo ah dadka intooda badan waxay hal meel ay ka arkaan inta ay ka maqlaan kaliya halagay ka maqlaan marka reer Puntland waxa loo baahan yahay inay smart ahaadaan haddii kale koonfurta Soomaaliya soo ziyaaro ugu taga soo eega waxa meesha ka jira madaxdiina iyo dadkiina ku qayliya election Pakistan ka tuura idinkoo isticmaalaya isiradiina waasidiina laakiin dadkiina idin xukuma marka idin la jooga haddii dehumanize laga dhigo oo laga dhigo habar dugaag laga dhigo idinka idin agtaala marka xilligaas dhib kasto iyo iska horimaad Puntland ka dhaca waxba uma arkaan dadkan waxay u arkaan kaliya lacagtooda iyo waxay doonayeen objectivekooda waad ogtihiin waxa lagu sameeyay DDS xilligaas lagu sameeyay oo la caburiyay oo NLF iyo barnaamijyada waxa la caburiyay marka xataa dawladda Soomaaliya ee Muqdisho joogta hadii aysan ku faraxsanayn dadka xukuma meeshaas sida aysan ugu faraxsanayn kuwa xukuma Kismaayo taf waxba laga ma qaban karo
dadka ayaa soo xushay, dadka ayaa tuuraya. laakiin dadka kale hadday isticmaalaan meelo kale oo kala duwan warbaahinta oo dadka aan wax fahmaynin wax laga dhaadhiciyo oo la yidhahdo iska rida kan maxuma odayaal la soo fadhiisiyo la yidhahdo indheer garad iyo waxgaradka jaamacad waa inuu ka soo baxaa uu degree u haystaa. laakiin oday geed hoostiisa fadhiya, of course dhaqan baan leenahay, suldaanaanu leenahay, israanu leenahay, ugaasyo, malaqyaanu leenahay, fair enough. laakiin aniga ninkaas waxaa igala indheer garadsan oo igala maskax weyn ninka degree hayso jaamacad ka soo baxay oo yaqaana ama political science yaqaana ama international relationship yaqaana. laakiin qof ka arkaya from the qabiil point of view ama from his pocket jeebkiis point of view, kaas inuu idinka burburiyo nabadda iyo wanaagga aad haysataan, runtii waxay noqonaysaa wax ayaan dara ah. waxaa kaloo cajiib ah, xilligan hadda lagu jiro, habeen hore waxaan soo qoray Puntland ayaa badbaadisay beledweyne. dad badan ayaa marka la hadlaya aysan fahmin. dadka waxay yidhahdeen hebel waa nin weyn, ilaahay weyne. de anigu hebel ilaahay isku soo barbardhigi lahayn. badbaadadan ilaahay inuu leeyahay qof walba u jeedaa. Puntland iyo ilaahayna isku soo barbardhigi lahayn. marka wax walba oo la badbaadiyo ilaahay baa badbaadiya. laakiin Puntland markii ugu horreysay maaha. sanadkii hore ogaada, mar walba dadkoodii u dhashay Soomaalida ahaa ee meesha deganaa iyagoo weli juqraafi ahaan ka dheer siday ugu istaageen. xalay xataa haddii lagu xusi lahaa la dhihi lahaa Deni waa qof aad u xun, laakiin reer Puntland maasha Allah walaalahooda siday ugu gurmadeen lama dhihin. sababtoo ah waxaa la tusayey negative side of Puntland. marka lagu tuso negative side of madaxweynaha demonize laga dhigo, waxaa lagu tusayaa negative side of waxa lagu tusaya Puntland ayaa lagu tusayaa. taas waxaa la doonaya qof walba inuu ogaado. maxay sameeyeen wiilashii gabdhihii sida daacad u ilmeynaya, u arkaya, meel walba tegay. gabdho waxaan u jeeda maanta ka soo dhoofay garowga, xamar tegey, haddana beledweyne u duulaya ayaan arkay. ilmadeeradooda ma degana, qoyskooda ma degana, laakiin Soomaali dhiiggaas ay meesha ugu tageen. intaas xataa credit waa lagu siin kari waaye. war qofka haddaad necab tahay ama aad doonaysa inaad tuurtid, ha isku qaldin Deni iyo Puntland isku qaldin. Deni waa shakhsi jooga baxaya, laakiin at least Puntland intaad dhibaato horseedi lahayd credit si waxaad tirahdaa maasha Allah ilaahay khayr hadin siiyo. wadankiina dadkiina Soomaali dad badbaadiseen, dad badan bay badbaadiyeen, teendhooyinkooda, lacagtooda, millionska, ganacsadooda, wax walba. marka waxay u quuri waayeen ayaan rabaa inaan idin sheego sida ay u garab istaageen walaalahooda reer Hiiraan iyo Fatahaadda. ma waxay u quuri waayeen marka nabadgelyada iyo horumarka socda. dhaqanka Soomaalida ayaa wuxuu noqday meel walba oo shaqeysa lama arki karo waxa la doonaya dab in laga shido. meel walba oo shaqeysa qof walbana waa og yahay. dhowr odaya marka si xor u hadlay yiraahdaan iyaga afka shacabka reer Puntland ku hadlaya. odayaal hadlay shacabka reer Puntland ku hadlayaan, dhalinyarada, waxgaradka, wiilasha jaamacadda ka baxay, gabdhaha, dadka wadanka oo muhiimka ugu ah ayaa afka wadanka ku hadlaya. marka wadanka yaa la idinka qasin. idinma lihi ha loo buraanburo Deni iyo baarlamaankiisa. Deni waqtigiisa markuu dhammaado haddaad u bogtaan soo celiya, haddaadan u bogin ka tuura. laakiin qof banaanka jooga oo reer Puntland ama xamar jooga ama jooga London ama Minnesota jooga oo ilmihiisa ay u degan yihiin yuu idinka qasin nabadda iyo barwaaqada aad haysataan. ilaan barwaaqada number 1 waa nabadda waa. taas ayaa ugu muhiimsan. marka ugu dambeyn Puntland iyo Deni waa la dhaleeli karaa, laakiin aniga waxaan aad uga soo horjeedaa barnaamijkii baxay mar kale mar saddexaad ayaan ku soo celinayaa ee University TV ka baxay. barnaamijku waxaa fiicnaa kan dambe ay soo wadaan inay u yeeraan dhowr qof oo ka soo horjeeda Deni iyo dowladdiisa iyo dhowr qof oo taageersan Deni iyo dowladdiisa. marka la wada hadlo, wariyaha dhexda u istaago. wariyaha waxaa la doonayaa mar walba inuu difaaco qofka maqan, laakiin xalay lama difaacin. xalay waxaa demonize laga dhigay oo laga dhigay maaragtay reer aakhiraad laga dhigay maaragtay bahal higle laga dhigay madaxweyne Deni. madaxweyne Deni faultigiis waa leeyahay, wuxuu leeyahay qaladaadkiis waa leeyahay, laakiin waa la doortay. qof walboo la doorto, qoladan hadda farmaajo iyo la doortay qaladaadkooda way leeyihiin. Trump, Theresa May gabar la heli jiray, Boris, qof walba waa leeyahay qaladaadkiisa. laakiin haddii dhanka electionka ama doorashada laga soo mari waayo oo dagaal warbaahinta lagu soo qaado demonize laga dhigo, dadka ugu horeeya oo luminaya wax walba waa reer Puntland iyo ugu horeeya. yaa ku xiga reer Soomaaliya yaa ku xigta. marka Soomaali after 30 years ma u baahan tahay
in puntland oo dhowr iyo 20 sano jirta in la qaso uma baahno. qofkii taa ku taageerana wuxuu noqonayaa. marka waxaan dhihi lahaa dowladda puntland waa inay jawaab ka bixisaa. waxba tari mayso in la yidhaahdo wariyaha waa laga joojiyay shaqadii, waxba tari mayso. waxba ha ka joojinin war. hadda xiliyadan tviyadii iyagaaba dhowr sano kadib hawada ka baxaya. meeshan social media ay awood leh. maanta inta daawanaysa ma daawanayso 10 tv la isku daro ma daawanayso. waxaa la doonayaa in ay ka soo jawaabaan. xataa BBC waa lagu qabsadaa, Voice of America waa lagu qabsadaa, warbaahinta adduunka waaweyn ama raaligelin bay ka bixinayaan waxay sameeyeen oo ah one of the worst program. anaa og maamahdii haddaysan ku maqlayn ismaqashiid anaa og, haddana waxay sameeyeen barnaamijkii ugu xumaa oo dadka lagu kala geeyo dhibaataysan ayay sameeyeen. sidaa awgeed ama ha ka soo bixiyaan apology, raaligelin ha ka bixiyaan. ma ahan inay ka hadleen puntland raaligelin ka bixiyaan in ay qofna aanu keenin meesha demonize ay ka dhigeen ama maaragtay habarduga ay ka dhigeen madaxweynaha iyo reer puntland, isla markaana ay gebi ahaan one side story u ahaa. marka taas day sameyn waayaan iyagay jirtaa. wixii dhaliil ah mar walba diyaar ayaanu nahay. ma nihin anaga tviyada lacagta la siiyo ma nihin. solarportal@gmail.com wixii taageerana solarportal@gmail.com wixii kusoo kordhana waa idin sheegaya insha allah. anigoo ah cabdinaasir ismaaciil, intaan hawada kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.